السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب أيال مال كستو أدمي كشوف تان كسر وهذا تضبط كأيو ورك جوا وينا أفلام تنديجا وانتظر كسر هذا النوع دونه شيكوين وين أو أفلام تقص سنة يلا يا في الدنيا أو أي غير كيهين أكشي يوالي به فيلم كيسؤال لو ذا سوق يلا عديين مع المقاص أو يكشران أتريشة وين شيل بشتي أوضي جيدا يوالي به شهيد كبر الله وضح مبريين iyo qodobo kale uu qayb ka yahay Donald Trump oo la dhacsan filimada Hindiya iyo qaybo kale baan soo qaadan doonayo ku saabsan toddobaadkii aflaamta Hindiga war saxaabada channel ku cusub tahay noo subscribe si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee aflaamta toddobaadka iyo aflaamta Hindigu haddaan u eegnana yaa toddobaadkii Hindiguna haddii aan u eegno waxyaabaha ugu waaweynaa ee toddobaadku aadka loo hadalhayo waxa kamid ah ninkii Donald Trump ahaa wuxuu leeyahay anigu xataa waan ka dambeeyaa aflaamta Hindiga anigu xataa waan ka dambeeyaa buu leeyahay ninkii laba madaxweynuhu ahaa hadda ka hor baa ninkii Obama ahaa barigu madaxweynuhu ka ahaa Mareykanka baa waxa uu ka sheekeeyay in filimada Hindigu aad ugu dambeeyo gaar ahaan hadalladii jacayl ee dhexmaray Kajal iyo Shaaruqan filimkii Dilwala Dilhajayenge oo ah mid kamid filimada xusuusta badan ee Hindiya jacaylka ahaa marka Obama aadka ugu sheekay mid filimka ka uu xiri waa qayb waan qaabka u shukaansanaya Kajal waan ka helbu leeyahay Shaaruq filimka maruu ka sheekinay Trump oo toddobaadkan isagu Hindiya joogay ayaa ku cod dheer ku qayliyay ama cadeeyay inuu u qabo jacayl weyn filimada Hindiya waxaanu ku sheegay Hindiya inay tahay wadan 2,000 oo film laga soo saaro sanadkii Hindi moogtahay wax kale kuma shaqeystaan ayaga kabtooda film leh macna ayaga waxa weeyaan dhaqaalahoodu wuxuu ka soo xaroodaa aflaam inay sameeyaan wuxuu leeyahay Hindi waa wadan khatar badan buu leeyahay oo magic ah yaani saaxir ah sababtoo wuxuu inuu saaxir weyn kala jeeda wax kala ah oo waxa uu leeyahay waa wadan laga sameeyo 2,000 oo film sanadkii jacayl dansi sheekooyinka laga sameeyo sida uu leeyahay filimada LJ oo ah Dilwala Dilhajayenge ba kamid ah uu leeyahay wuxuu leeyahay filmo qatar badan bay soo saareen Hindiya taariikhda oo kamid ah filimka Dilwala Dilhajayenge iyo Sholay buu leeyahay marka Hindi wiligeed waxay qatar ku ahaan buu leeyahay soo saaridda filimada marka wuxuu leeyahay Hindiya oo ah goob lagu soo saaro 2,000 oo film sanadkii waxay soo saaraan filmaan dadku cajab geliya oo ay kamid ahaayeen buu leeyahay macnuhu inuu sheego waxay taas ka dhigan tahay filmada inuu magacaabo filimkii Sholay Ali Dheere iyo Dalamdra iyo inuu sheego filimkii Dilwala Dilhajayenge oo jacayl ahaa kaasna dagaal buu ahaay iyo saaxiibtinimo waxa mid laga dareemayaa in odagu la socdo Trump filimada aflaamta Hindiga oo in dadku qaar kaligood la socoriyo Soomaalida balse ninkaasna uu aad la socdo marka Trump wuxuu carabaabay toddobaadkan in Hindiya ay soo saarto filimaan waaweyn oo qatar badan oo taariikhda galay isagu xataa toddobaadku wuxuu cadeynayaa inuu aad u daawado filimada aflaamta Hindiga wuxuuna carabaabay filimkii Shaaruqan ee Dilwala Dilhajayenge Kajal iyo filimkii Amitabh Bachchan ee Sholay marka taa ka dhigan tahay odagu inuu aad la socdo aflaamta Hindiga toddobaadkan waxa loo hambaliyay jilaaga weyn ee lagu magacaabo Shahid Kapoor oo toddobaadku noqday 39 jir Shahid Kapoorkii canuga yaraa wuxuu hadda maraya 39 jir waba aabe ilmo dhalay Shahid baa toddobaadka loo hambaliyay aktarka weyn Hrithik Roshan Mira Rajput xaaskiisa Alia Bhatt Kiara Advani iyo kuwa kale badan aktarka hadda soo wada filimka Chelsea ayaa maanta iyo toddobaadkan loo wada hambaleynayo wuxuu noqday 39 jir buu noqdayo haddana wuxuu ku jiraa sameynta filimkiisa xigo oo ah filimka Chelsea dhawaana wuxuu keenay filim aad u guuleystay inkastoo sigaar dhuuqa weyn ahaayo baakad ugu baxa bahalka ama 100 xaba afka ku ridanaya marka aktarku wuxuu noqday lagu leeyahay 39 jir buu noqday aktarka weyn ee Shahid Kapoor toddobaadkan waxa la xaqiijiyay goorta soo baxayo filimka Surya Vanshi oo ah filim uu soo wado jiraaga weyn Akshay Kumar Akshay waa laga yaabayahay Akshay wuxuu leeyahay inta ku weerarsantiin sanad inaad hal filim keentaan Salman Khan iyo Amir Khan iyo Shah Rukh Khan inta filim hal sano ku maqantiin sameeskiisa anigu waxa igu balan buu leeyahay hashi bilbiran loo filim keeno waxa weeyaan shaqo diyaar weeyaan ma ogta hadda Akshay Kumar waa ninka ugu shidan aflaamta Hindiga waa ninka ugu shidan ninka la yiraahdo waa ninka hadda aadka ugu shidan weeyaan marka laga hadlayo filimada Hindiga oo wax weeyaan waa inaan caadi ahayn Master Akshay Kumar marka filmo kala duwan buu keenaa uu iska daba keenaa shactiro iyo afjacayl iyo action intuba marka wax weeyaan ninkan waa filmo iska daba keenis waa laga yaabayo hadda wuxuu soo wadaa film la yiraahdo Surya Vanshi waxa la cadeeyay filmka inuu soo bixi doono Maarso 24 afarta Maarso bisha soo aadan ayaa filimka la cadeeyay soo baxayo laakiin qaab ka duwan qaabkii filimada markay soo baxayaan lagu cadeyn jiray ayuu ka sameeyay filimkan maxaa yeelay Ajay Devgan iyo Ranveer Singh oo filimka inuu qayb ka noqonaya
qayb ku leeyna filimka qayb ka soo galayaan ayaga xataa wax ka xayisiinayo ya Karan Johar ayaana maanta baraha bulshada ku xayisiinay filimkan iyo goorta la sii deynayo marka 24 bisha Maars baa la cadeeyay inuu soo bixi doono filimka Suriya Fanshi oo inkan ay la wado atriishada caanka Katrina Kaif xataa Sheikh Sharif baa ku jira xataa waxa filimku soo galay Ajay Devgan iyo Ranveer Singh laakiin filimka waxa iskale inta badan oo ku jilaya Akshay Kumar marka filimka waxa la cadeeyay inuu soo baxayo 24 bisha Maars toddobaadkayana waxyaabaha ugu Bollywoodka ugu waaweynaa in waxa kamid ahaa atriishada Shilpa Shetty ayaa toddobaadkan loo wada hambaleynayaa iyo ninkeeda Raj Kundra sababtoo ah waxa uu dhalatay canugoodii labaad baa u dhashay baa leeyahayo waxa weeyaan canuga kan waxay atriishadu sheegtay in muddo 5 sano ay sugaysay ilmaheeda waxa u dhaxeeya dhalasho ilaa 6 sano oo kala dhaxaysa Shilpa Shetty waxay aroostay ganacsadahan weyn Raj Kundra dadku la waxay ka yaabeen war goormayba Shilpa dhashay maxay ilay mararka ugu dambeey ka soo muuqanaysa fagaarooyinka uurkeeda maanu muuqanba balse waxa baad leeyahay 15 February ayaa gabaray u dhalatay oo waxa weeyaan waxana gabadha loo bixiyay Samisha iyaduna waxa weeyaan Shilpa gabadheeduna Samisha u bixisayo marka Raj Kundra iyo Shilpa Shetty ayaa aad loogu wada hambaleynayo kadib markuu u dhashay canug ku soo biray familkooda ya bishan hadda aan ku guda jirno ee February marka labadan lamaane oo ah kuwa weyn ee aad looga qadariyo Bollywoodka inkastoo ninkeedu uu filimada shaqo ku lahayn balse ay tayadu ayaa ah mid weyn oo la yaqaan legendary ah weyn ah waxay isguursadeen oo Shilpa ay guursatay ganacsadahan weyn ee Raj Kundra sanadii 2009 bay guursatay waxaana u dhashay Vian oo dhashay 2012 canugooda wuxuu u dhashay hadda 2020 buu dhashayo waqti dheer bay sugayeen canuga kale أنا هذا كسر الله وضع تفيلم هذا الشيء بشتي وليس ذي وجبير ونا يعني أقول غير ولي أضمن عليه نسوا وأنا يسوى هذا الفيلم يكبدين هو جنب تو إيو نكاما تطبعت كينا وهي أقوى وين أفلام تنتجين وحكم ده أكتر كوين لقوا مجعبو وتوراها وين يسقوا لقوا مجعبو أجاي ديفغان يا كاجل بطلات كله وده هم بريني ما دام أي سو كسو ورقتي جور كودي وقتي أدوفك Ajay Devgan iyo Kajal waa mid kamida lamaanayaasha lagu jecel yahay Bollywoodka Hindiya oo hadda waxa la leeyahay 21 sano ka soo wareegatay xilligii ay labadan u aqal galeen aqalgalkoodu waxa ka soo wareegatay 21 sano 21 sano baa laga joogaa marka waxay hadda u dabaaldegayaan in 21 sano laga joogo guurkoodii labadan actor weyn waxay isguursadeen sanadii 1999 guurkooda hadda 21 sano jir buu noqdayo waqtiga laga joogo maanta guurkoodii waxa uu noqday 21 sano guuridii ka soo wareegtay arooskoodu way toodkan u dabaaldegayeen Kajal baana ka sheekaysay waxay ka dhaxdhacay iyadii Ajay markay kulmayeen filimkii ugu horeeyay isla keeneen waxay sheegtay inay wada kulmeen labadoodu 25 sano ka hor waxaan kulanna way leedahay filim yiraahdo Hulchul ha waa jiray waa filim ay wada keeneen markii ugu horeysay aan sameeyay leedahay filimka ismaana garanin asaga markaan imaaday on goobtii duubistii baad waxaan iribay leedahay warmay geeskayga midka atooraan filimka la jiray waa kee waxa farta lagu fiiqbay tiri qof geeska fadhiya oo Ajay ah ismaanu garanayn bay leedahay 10 daqiiqo baan isla fadhiisanay waxyar baan wada joognay hadda waxay markii dambe noqonay bay leedahay saaxiibo isku fiican oo aad isu weyn balse Kajal waxay cadeysay labadooda xilligaas inay laba ruux oo kala shaqaysanayeen waxay cadeysay iyadu inay nin kala ku haysatay ayuu isaguna kala ku haystay ama gabar kala ku haystay yani xiriir kala dhacay waxay leedahay أنا يسوق اسمه شكاستني إنه الله معنا يالك لبان الحين بالس مر دمبه أي نسفه النيو سكسر دواني بالله هاي Ajay Devgan وحد اللي وضع وجهه نياسة يوك لبا عرور oo iyagu ay dhaleen marka toddobaad loo wada hambaleynayo actor-ka weyn ee lagu magacaabo Ajay Devgan iyo Kajal oo 21 sano jir uu noqday arooskoodii 21 sano baa laga joogaa xilliga isguursadeeno haddaan intaan ku bixino barnaamijku haddaan ku daro toddobaadkayna waxyaabaha ugu waaweynaa ee la yaabka dunidana waxaa kamid ah toddobaadka wadanka Nigeria ariyaabla laga soo warinayaa oo gobol muslimiintu ay degta sheeko jacayl oo culus ayaa laga soo tabinayaa gobolka waqooyiga ee Nigeria ee Kano halkaas oo laba nin oo kala duwan ay wada guursadeen hal dumar baa la leeyahay arinta muranka dhalisay ayaa in 32 jir lagu magacaabo ama gabar lagu magacaabo 32 jirad oo Xaawo Cali Mire taas oo hadda halis ugu jirta in la ciqaabo hadii lagu helo dambiga inay marin habaabisay labada nin oo isku guursatay waana muslim waxa wax la yeeli karaa Kano waa mid kamid ah dhowr gobol oo Nigeria dhowr goobo
oo Nigeria oo shareecada islaamka lagu dhaqo ama qaanuunka islaamka halkaas oo ay dambi ka tahay in haweeneydu ay guursato in ka badan hal nin xaaladdu waxay si xumaatay markii Bello Ibrahim oo 40 jir ah oo ah ninkii koowaad ee gabadhnu qabay uu dib ugu soo laabtay gurigii markuu soo galay uu arkay ninkan oo xaajiyadiisii la jooga waliba la hasaawaya Ibrahim ayaa aad u xanuunsaday waxaana uu safray tuuladiisa si halkaas loogu soo daweeyo halkaasna uu ugu soo qaato 2 sanadood waxa uu yiri waxa uu markii uu ku eedeeyay intuu maqnaa oo ay guurstay iyadu intuu ka maqnaa inay guurstay mid kale ha yeeshee gabadhu waxay sheegtay waxay leedahay markuu iga tagay buu ii sheegay inuu furay taasna waxay ka dambeysay inuu mid kale guursado Ibrahim ayaa arintaas diiday isagoo sheegay inuusan weligii furin welina uu arko inay xaaskiis tahay waxay isguursadeen 17 sanadood ka hor waxay isu dhaleen 6 xirur weligii maanan furin haddii ay taas ku adkaysatana aaway cadaynteedii buu leeyahay gabadha in la xukumana waa laga yaabaa caawayo barnaamijkeeni toddobaadka iyo la yaabkii ciyaarihii aflaantii waanu inta ku soo gabagabaynaynaa iyo anigu qodobada la socodsiinayay nabadgelyo